intaa kusoo koobo haddii aad maqlaysid kusoo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لما مغلسة. waayaha mudane Geediyoos adigaan ku siinayaa codka barnaamijka haddii aad la socotay intii maxay ahayd inay ku jiray mudane Cabdalle intii aan warbixinta ka sameeyay waxaan jecelahay adigoo inaad si dhaqso ah u dul marto kusoo dhawow. horta ayaalo waan ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan muwaadiniinta reer Jabuuti ee ku xiran Jabuuti Toos meel kastoo ay ka kala joogaan adduunka dacaladiisa dhammaantood waan soo salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa farsamayaqaanka Jabuuti Toos. waxaan ku dari lahaa anigu hadal horta waa dhameyseen adiyo maxaan ku dhahdaa aqooyaan Cabdul Cabdu waa dhameyseen. anigu waxoogaa yar baan ku dari lahaa unoo xagga dambe ka raacin lahaa iyo wax yar oon rabay inaan la wadaago shacabka reer Jabuuti oo waxa weeye haddii aan ka dhaqaaqo yarkii yaraa u dambeeyay aad ka hadlaysay aad lahayd mataqaana gidaafada guraya ee lasoo sawiray ee fiidiyogiisa baraha bulshada wareegayay in bajaaj loo iibiyay baan arkayay dhalinyartii mataqaana reer Jabuuti diasporaga ahayd isku tageen baa la sheegayay. horta waa guul oo mid waxay guul ku tahay in dadku ay dadka u damqanayaan weli damiirkii u jiraa magarayaalow weli damiirkii u jiraa oo dadku way damqanayaan amba ha joogaan dalka Jabuuti dhexdiisa ama qurbo joog ha noqdaan laakiin waxa weeye mataqaanaa mulkiilaha jamhuuriyadda Jabuuti waa Maqajaan Ismaaciil Cumar Geele iyo ilmaadeeradii iyagaa dalka iska mulkiyey iyagaa dalka iska leh waa gurigoogii waa maxaan ku rahdaa waa hantidii dalka iyagaa iska lahaaday awooddii dalka iyagaa gacanta ku haya dalka sida ay doonaan ayay ka yeelaan isagiyo ninkan inadeerkiya jaamac cali geele la yidhaahdo jaamac jinni loo yaqaano waxa weeye mataqaanaa horta wax halkooga iska bedelaya ma jirto iyagu way caddaysteen cadowtinimo inay noogula dhaqmaan inay sida carruurta noola hadlaan ina maaweeliyaan qorshooyin nagu dul qaataan iminka waxaad arkaysa eoliyankii haddeer aad ka hadlayseen eoliyan baad ka hadasheen oo la furay Jabuuti Park eoliyan waxaad arkaysaa mataqaanaa sida uu hadlayay waad maqlaysay jaamac cali geele inaad ummadda u sheegto haddana mar kale ma garanayo waxa weeye mataqaanaa waa sidii uun raggani waxa weeye annaka wax kasta iska qaadanayna waxaan raqaysanayna ma jirto amba nagu ogolaada amba nagu diida sidaan anaku yeelno ayaa soconaysa sidii idinku ma jirtaan waatayna leeyihiin ayaalow waxaan kuu soo diray ayaalow video baan kuu soo yardiray in yar maqaal haddaad eegtay messengerkaaga adoo raaliga waxaan rabay inaad ummadda u yeeshido waxoogaa waa sheekh Mustafa Xaaji oo ka hadlaya fircoon sida uu dhaqmo iyo halkii iska sawaabiyaan maxaan ku dhahdaa Maqajaan Ismaaciil uu sida uu la dhaqmayo dadkiisa iyo sababta keentay inuu 24 sanadood uu kursiga ku fadhiyo ayaa halka keer muqnaanaysa waxaan jeclaan lahaa ayaal haddaad noo shiri karto ayaa la maqlaysaa waa ku maqlaa waa second way waa hadal murtilo wuxuu ku hadlayo fadlan yarshid waxaa doonayaa mataqaanaa inaan markaana keer falaqeeyo in yar ka hadlay videogaas intii muhiimkahayd waa sheegteen takale Soomaalida haddii ay noqotona cadowga Soomaalida burburiyey hadday dadku mid yihiin dictator meel fadhiya haddana dulmi wada wuxuunbu suurtageliyey dadkan uma isku xidhnay hadday dadku mid yihiin raalimba ma xukumi karo walidaalika baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa fircoon jacala ummaddiiba wuxuu ka dhigay maxay shiic kooxo markii laga dhigayna muxuu sameeyey yastadcifu taa'ifatan minhum baa layidhi koox buu la baxay markaa maalinba reer baa la tumaatay ilaa dad wada tuntaadna lagu tumayaa yastadcifu taa'ifatan minhum baa ilaahay koox ka mida buu gumaystay laakiin maxaa uu ku gabagabeeyey gumaysigaa wuxuu gaadhsiiyey baa ilaahay yidhi xad uu maxay sameeyey yudabixu abnaahum ويستحيي نساءهم بيوجد وهي واهاتي إنه قبيل كل حكومين أنا رجنا دلنا رجل الله دم كنا إلا دايا شغالة نقضان ورربر إسرائيل إلهي بوحي سبحانه وتعالى إنه كان من المفسدين. أوكي أيانا وضعتنتهاي جزاك الله خير أنت نودعتي عدكاس متقنا بموقالك وحوي صوبتي واحد سببي موجودة مد كمدة ومد أوين أهولي بقى keentay inuu Maqajaan Ismaaciil uu hoggaanka dalka 24 sano haysto waxa weeye ummadii ayuu gartay sidii uu kala fadili lahaa uu kala tafaraar ugu sameyn lahaa sidii uu kala adeegsan lahaa dhexdoodii iyagii buu isku adeegsanaya ta kale waxaan rabaa ayaalow inaan halkan si qayaxan aan uga sheego Ismaaciil Cumar Geele iyo ilmaadeeradii qabyaalada may sameyn way afuufeen ayaalow way barfiyeen oo
intii bugtay ee annaka shacabka ka mid ahayd ee cudurku hayay qabyaaladu ayaa iyagiiba sii faafiyey baasha marka waa in la fahmaa raggani waxay heleen sirta ay ku joogi karaan meesha sirta ay geeska afrika ku laaqi karaan ayay heleen ayay ogaadeen marka dadku ummaddu waa inay fahanto war anigu kaalintee ka jooga halkan iyo dhibtanna haysata ama xaaladan aan ku jiro maxaan anu qaybtee ku leeyahay ma dhibbana unbaan ahay dhibbana haddaan ahay haddana maxaan ka ciyaaraya halka dowladda waxa weeye aan directamo ama si toos ah ama si dadban shacabka reer Djibouti waxay u fudeediyaan barnaamijyada iyo qorshaha uu mataqaanaa maqajaan Ismaaciil iyo ilmaadeeridii soo geliyaan dalkan jamhuuriyadda Djibouti reer ba iska lahaaday dalkani jamhuuriyad maaha waa reer public ba la dhahdaa hadii waa qoys ba iska haysta qoys ba ka taliya iminkana taladii meel ay ka qabtaan bay garanayeen wadankii wuxuu ay arkay inuu kasii laaqmayo waxay qarag ba ku sheekeeyeen maalin dhow inay toosiyaan hagaajiyaan bay rabaan marka waxa way waxaan ka yeelay ma jirto waxay hagaajinayaan ma jirto waxay 46 sanadood gaar ahaan 24 sano u dambeeyay ay garan waayeen inay hagaajiyaan maanta iyo berima hagaajinayaan taas waan aaminsanahay shanta dambe soo socotana 2026 ka soo socdana election uu isku diyaariyay ninkan inuu isagu joogo inuu isagu mataqaanaa noqdo qofka dib loo dooranayo maadaama uu dhinacna ciyaaro wax la yiraahdo persecutor ama daalim dhinacna uu ciyaaro badbaadiye taana ay sababtay reer Djibouti inay jahwareereen ay kala garan laayeen cadowgooda iyo sadiiqooda isagii baa labadii dhinacba ka ciyaaraya intuu problem u abuuro ayuu haddana iska dhigaa kii xalinaya problemka marka waxa weeye shacabka reer Djibouti war idinka mas'uul ka ah dibtanaad ku jirtaan cid kale oo nigu haysa ma jirto ninkanna idinka ka dhigay sida uu yahay maanta idinka dictator ka dhigay idinkaana mataqaana u ogolaaday sida inuu idin galo waayo waxaad u tartamaysaan sida dabadhil ugu noqon lahaydeen waxaad ugu tartamaysaan inaad tirahdaan aniga doorkeygii ha shaqaysto ha cuno kama fikiraysaan mustaqbalka aayaha ubadkiina kama fikiraysaan mustaqbalkiini ba halayseen mustaqbalka ubadkiina iyo ubadka dhali doonaan ayaad si halayseen haddana marka waxaan leenahay waxaan anigu leeyahay gaar ahaan Djibouti dibta haysata reer Djibouti gaar ahaan beesha Ciise waa iyada mas'uul ka ah iyadaana garab ku siinaysa iyadaana mataqaana u fudeydinaysa iyadaana cabsida isku beeraysa haddii ay raggan iska qaban waayaan haddii ay u midoobi waayaan waxa imanaysa ayaalow in ay mataqaana dalkani uu ka baxo xadkiisii wax walba limit buu leeyahay marka waxa weeye cadaabta ku soo socota kuwan daalimiintan meesha haysta dadkoo dhan bay wada saameyn doontaa cid ka badbaadis ma jirto sheekh iyo shariifba way wada qabsan doontaa haddii mudane Gedios aad maxay ahaydinay kugu soo dhaweeyo inta dambe barnaamijka warbixintaasi maanta na soo gaadhay aadka iyo aadka u moogtahay caloolxumada kugu keenaysa dhalinyartii jamhuuriyadda Djibouti ay noqdeen tamadhadaas iyo maxay ahaydinay qaar maxay ahaydinay sharbalino iskuullada ku hor iibinayo tacliin ay dhigan kareen sababa ay u dhigan kareen ay tahay hooyadii iyo aabihii baa iska moogtahay iyagoo ah faqiir iyagiiba waxa ka sugayaan ay leeyihiin ordo oo maxay ahaydinay loogu iibsho sharaabilnimo tamadhada noola fadhiista gidaaradaas caruurtii jamhuuriyadda Djibouti in ay dhibta ay ku nool yihiin in saboolnimadii maanta maxay ahaydinay boqolkii maxay ahaydinay maalin moogtahay bil walba ilaa sanad walba marka lagu tilmaamayo in sanad walba la sheegayo in boqolkii 5 ilaa 6 reerood ay soo galayaan saboolnimada soo galayaan saboolnimadaas oo mid iyadu ay deetu rabbaaniya way dhici kartaa laakiin ay iminka tan jamhuuriyadda Djibouti ay tahay mid iyagu ay sameynayaan nimanka jamhuuriyadda Djibouti jufada isku haysata sababka oo dad qofkii shaqada laga eriyo la xirayo loo diiday meel inuu shaqo tago iyo arrimo caynkaas oo dadkii loo diiday shaqo iyo camalo inay qabsadaan amba baacmishtarkoogii la qaadanayo sidee bay adiga kula muuqataa sidee baad u aragtaa saboolnimadan iyadu sii badanaysa sii baahaysa jamhuuriyadda Djibouti dadkan iyagu sidan u nool saboolnimadaas umay ku noolaan doonaan mise adu waxaad rajo qabtaa oo leedahay dadkan saboolnimada san ugu jira waxay noqon doonaan dadka iyagu maanta maxay ahaydeen ninkaas gacanta ku qaban doona maqajaan ee iyagu waddankana badbaadin doona sidaad u aragtaa horta ayaalo waxa weeye aad baad u mahadsan tahay su'aashani waa su'aal markasta soo noqnoqota iminkana way kasii daraysaa horta eeg mid ayaalo waa in la ogaado raggan ku midoobay mataqaana ama midnimadu ay ka dhaxayso ku midoobay inay dadka dhibaato u geystaan xumaanta ku midoobay in ummadda cadaadiyaan xoolahooda cunaan
hantidoodii intay qaateen iyagu isku mataqaan